toosaad khadka ugu jirtaa waxaa kula hadlaya cabdisamed bal ka waran siyaasadan iyo dagaalkan cusub ee Ukraine iyo Ruushka sideed u aragtaa duulimaadka Ruushka ku qaaday Ukraine wallahi waxa muuqata in wadankan Ukraine hadda dib u eegno imika sidii ugu dambeysay aad moodaysan loo gacan haadinayo aradan wadamadan midowga Yurub ay u badayeen gaashaanbuurta naasna ay ka qayb ka tahay sidoo kale Mareykan iyo reer Yurub waxa marka hore doonayeen inay soo weecistaan Ukraine laakiin Ruushku arrinka waxa moodaa inuu fahmeen badan marka doorkan wuxuu moodaa inuu dul dhigayo wax kasta oo suuragalaba inuu ku qabsado Ukraine haye marka absimada gobolkan hadda inka dib u eegto xaaladihii uu soo maray inta ugu badan dawladihii ka dhisnaan jiray waxa u badnaan jiray inta badan dawladda Ruushka taageersan bay ahaayeen haye laakiin muddadan dambe waxa intii ay dhalatay dawladdan uu hogaaminayo Vladimir Zelensky waxaa moodaa inay dawladda u jeeday xagga midowga Yurub iyo reer galbeedka intooda badan way taasina waxay noqotay siyaasaddan uu tamaan dalka Ruushka oo runtii isaguna isku dayaya inuu Yurub halka inta usoo jirto ay Ukraine dhexdeeda timaado ama sanado military keenan ama hadhow gaashaanbuurta NATO hubka ku rakibtay waxaad moodaa Ruushka inuu ka dagaalamayo arrinkan marka leeyahay systemka dib loo eego adigu wax badan ba markii hore dawladdan Ruushku ay ku qabtay Ukraine marka arrimahaas oo dhan meesha ka baxeen waxa ka mid ah luqadii dhaqankii marka Ukraine ku leedahay midda kale waxa jirtay in adeeg raliya midda kale waxa jirtay in muwaadiniinta reer Ukraine ka qaxaya dalka malaayiinta kor u dhaafay in ay dadkii kala takoolayaan oo ay ajaanibtii wadanka ku sugnaa ay kala soocayaan oo dalka xabadda ku dhacashay ay leeyihiin dib u sii jooga arrintaa bal sidaad u aragtaa waa run way jirtaa taasiyo gobolada qaar buu Ruushku taageersan yahay goboladan Luhansk iyo Donetsk meelaha waxaad moodaa Ruushku inuu aad u taageersayo xabad iyo rasaas midna looma adeegsan madax banaanida wadada iyaga la siiyay haye hagan laakiin markaad eegto halkan Kiev iyo kale ku taalay Ukrainian kan kale ay u badan yihiin waxaad moodaa in arrinkaasi runtii uu Ruushku cadaawad aad u badan halkaasi ay ka muuqato oo ciil badan u qabo idinku sideed u baxday war ku sugnay dalka adigu sideed ugu baxday dalka markaad aragtay bilowgii in uu talada weeraradan ay xagga sare kaga soo dhacay kaga mid madaafiicdan bilowgii wallahi dalka way khatar badan tahay aad way khatar badan tahay imika waxaanu joognaa anagu xadka runtii waanu ka baxnay aagii dagaalka laakiin dad badan baa khatar ku jira dadka Ukraine Kiev ku nool waxaad moodaa inay dhibaato badan xagga ka soo gaarayso Ruushku waan u waabayeen hadday badan noqoto hadday cirka noqoto dan walba gantaaladu way kaga soo dhacayaan wuxuu qabatay tan wadamada Mareykanka iyo reer galbeedka ay ku soo rogeen Ruushka aragtiinta leeg baa laga aaminsan yahay waad odhan kartaa runtii waxaad moodaa taa Ruushka inuu diyaar u yahay inuu joojiyo uu sugayo in codsi ka yimaado Ukraine oo ay ku aqbalayso inay waxan faraaga yahaan dareeyo reer galbeedka ay faraaga ka qaadayso ay Ruushka ku qanacayso marka taasi waxay ku xidhnaan doontaa uu firfircoonida Ukraine la timaado laakiin ana qabatana simka Ruushku waxa weeye hubkii hadda noqotay iyo saadkiisii military oo dhanba wuxuu dul dhigay isugu geeyay Ukraine haye marka taasi wax badan ma baajinayso oo gorgortankaasi weli looma soo xagga hoos marka loo eego lama joogo meeshii lagaga hadli lahaa marka waxay ku xidhan tahay xaaladdu siyaasiyiinta Ukraine waxay go'aansan dawladda Ukraine meesha ka baxda ayuu doonayaa uu dawladda uu guriga ka dhiso dalkan Ukraine dhinaca kale waxaa jirta in madaxweynaha Ruushku maalin dhaweed wuxuu la kulmay wasiirkiisa gaashaandhigga iyo ciidamada nuclear-ka u qaabilsan Mareykanka isagu ka hadlay arrinta maxaad ka qabtaa arrinta runtii waa run taasi way jirtaa heegan baa u geliyay ciidamadii nuclear-ka iyo hadday noqoto hubabka qaabilsanaa waxaad moodaa in halkaana xaalad ugu hanjabayo wadamada reer Yurub ee u soo qaltaagay inay Ukraine usoo gurmadaan inay qanduuftooda dib u qayaan bad moodaa iyaga ku dhoodo oo Mareykan baa ugu weynaayo waxa weeye Mareykan ku gaabsaday wax ciidan inay igama tagaan buu meesha way marka adigu waxay xaaladdu ku xidhnaan doontaa imika dawladda Ukraine inuu Ruushku meesha ka saaro iyo inay Ukraine go'aan gaadho oo ay waxa weeye ciidamadu intay go'aan qaataan ay Ruushka la heshiiyaan waan gartay maxaa la oran karaa qiyaas ahaan wadadalkan ajaanibta jooga Ukraine dad intee leeg oo islaama baa jooga baa la oran karaa ile dad badan baa joogay runtii oo waxaad moodaa laakiin imika inay kasii iyaga ku dhowdu ay waqti hore ka konayeysteen ay ka baxeen oo xaaladan waxa weeye wadankan meesha maraya wadan dee awood badanna weeyaan inta badanna aan waxbaba xeerinayno markaa qof walba inuu ku cadilmuu ka baqayay markaa dadku waxaad moodaa inay meelaha xidadka ay ka gaadhayaan ay kasii gaashaanteen laakiin way jiraan dad badan oo dani ay waqti ugu saamixi waayeen inay ka baxaan meesha ama ha noqoto baaninkay lacagta kala bixi lahaayeen oo xayraan ama ha noqoto
goobihii kale ay u baahnaa ay isticmaali lahaayeen oo xidhan marka taasi dadka qaar way u suura gashay laakiin inna way ku cadibantay weli waayo su-aashada u dambaysa dad soomaaliya wax ka dhigan jiray oo jaamacadaha joogay iyo dad muwaadiniin soomaaliyeed ah maxaa la odhan karaa siday ugu gaashaanteen maxaa ilaa imika ka xayiran xagga soomaalida markaynu ka eegno waa runa way jirtaa boqolaal soomaaliya ayaa dee ka dhigan jiray wadankan Ukraine oo meelo kala daadsan meelo kala fog ku sugnaa laakiin haddana soomaalida inteeda badan waxaad moodaa inay is urursadeen oo ay group samaysteen oo ay marka hore ka kolayaysteen oo waxay joogaan xadka Poland intooda badan oo ayay gaadheen laakiin way jiraan arday weli aaminsan inay waxbarashada sii wataan oo meeshana ay nabad noqon karto oo iyagu go'aan qaadan way jiraan oo ku cadilan meelaha goobaha dagaaladu ka socdaan ama dhulka la duqeynayo ku dhisa waan gartay kaasina waxa uu Ile Xuseen Khaliif oo ka falaqoonayay xaaladda cakiran ee dalkaasi Ukraine intaynu mar kale wada ku kulmi doono anigoo Cabdi Samad leh fi amaan illah